بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يال صاحب يال وحاد كسو دواتان وعاد كسو سقدان برامجرات كينا هالكن وجنال كينو كلنا يوتيوبكا مداشا وراركا qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadan idinku soo maqana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu soo laabtay dalka kadib safar 4 cisho qaatay oo uu ku tagay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara warayaan daawadayaal idinkageena halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku soo gaaray magaalada caasimadda Muqdisho waxaa jira kulamo kala duwan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la yeeshay askarta tababarka ciidanimo ugu maqan dalkaasi Eritrea kulamadaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaarkood waxa uu ku xog wareystay askarta dhibaatada gaarka tabanaysa asgar waxaa jirta la jiiseeyay kuwa cudur ay ku dhaceen kuwa daruuf xoogan ay ka muuqato madaxweynuhu waa uu la sheekaystay dhibaatooyinkooda ayuu ka soo xog wareystay waxa uu kala soo kulmay ayaa daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonaa sidoo kale waxaa jira kaba muran dhaliyay oo ay ciidamada Soomaalida Eritrea wateen isla markaana aad lagu falaqeynaya baraha bulshada haddaba kabahani muranka dhaliyay sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena ayaan idinku soo gudbi doonaa duruufta ama diifta ka muuqata dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaasi Eritrea ayaana barnaamijkeena daawadayaal idinku soo gudbi doonaa soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal daawada muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Furagan Bareelka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay wafdigii uu horkacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud afartii cisho ayna weedaaratayna ku sugnaa caasimadda dalka Eritrea ee Asmara ayaa dib ugu soo noqday gurigooda ama hoygooda Soomaaliya magaalada Muqdisho ayay soo caga dhigteen waxaana jira kulankaasi amaba kulamo kala duwan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka sameeyay intii uu ku sugnaa gudaha dalkaasi Eritrea waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Siyaasi Afwerki sidoo kale waxa uu la kulmay wiilasha Soomaaliyeed ee tababarka u jooga wadankaasi Eritrea muddooyinkii la soo dhaafayna aad looga hadalhayo baraha bulshada waalidiintoodana ee baraha bulshada ka qayla dhaaminayeen iyo sidoo kale warbaahinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii loo doortay xukunka dalka waxa uu wacad ku maray inuu dib u soo celiyo dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ee la qalday isla markaana loo sheegay in tababari loogu qaadayo wadanka Qatar balse laga dejiyay Asmara oo caasimadda dalka Eritrea Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadda waxa uu dib ugu soo noqday caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho kulamada kala duwan oo uu ka sameeyay Eritrea iyo sidoo kale la kulanka uu la kulmay ciidamada Soomaaliyeed ee halkaasi jooga ayaa la rajeynayaa in madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya faahfaahin dheeriya ka bixiso oo ay bulshada la wadaagto xogaha iyo macluumaadka la xiriira safarka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Eritrea daawadayaal markaan aynu isdul taagno duruufta ka muuqatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku booqday xeryahooda tababarka dalkaasi Eritrea kabaha muranka dhaliyay ee lagu arkay ciidamada Soomaalida ee Eritrea aan ku bilaawno waxa markii ugu horeysay fagaaro lagu arkay ciidamadii tababarka u joogay dalka Eritrea halkaas oo xaddi xero ay ku jireen uu ugu tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha oo wehlinayo dhigiisa dalka Eritrea Siyaasi Afwerki ayaa kormeeray cutubyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo tababar u jooga dalkaasi Eritrea wuxuu warbixin ka dhageystay madaxweynuhu qaar ka tirsan saraakiisha iyo askarta ciidamadaas madaxweynaha ayaa sidoo kale ballan qaaday in askartaasi dib loogu celin doono dalkooda hooyo ee Soomaaliya balse markii la soo bandhigay muuqaalkooda ayaa waxaa la arkayay ciidanka oo xiran kaba saandala bedelkii buudka lagu yaqaanay ciidamada waxayna taasi horseeday hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ka dhex abuurmay Soomaalida qaar ayaa waxay u fasirteen kabaha ay xirnaayeen ciidamada Soomaalida
in ay muujinayso duruuf iyo rafaad ay ku sugan yihiin, halka kuwa qaarna ay ka ra'yi duwanaayeen. haddaba maxay yihiin kabahan muranka badan ka dhex dhaliyay Soomaalida ee isticmaasha baraha bulshada? dalka Eritrea si weyn ayaa looga qadariyaa kabahan oo waa astaan qaran. bartamaha magaalada Asmara waxaa loo taagay taalo muujinaysa muhiimadda kabahani saandalka ah ay leeyihiin. taalada laga sameeyay Asmara waa bir madow oo lagu sawiray kabaha saandalka ah, taasoo loo yaqaano shida. kabaha waxay astaan u yihiin jabhaddii Eritrea, gaar ahaan waxaa lagu xasuustaa dagaalkii cajiibka ahaa ee 30 sano xurnimada uga raadinayeen dalka ay deriska yihiin ee Itoobiya, kaas oo ku dhamaaday gooni-u-goosadkii sanadkii 1991. waa kabihii ay wadaniyiinta Eritreaanka xiran jireen tan iyo 1960kii, markaasi oo ay halganka ugu jireen inay noqdaan dal madax bannaan. ciidan xiran kabaha caaga ayaa ka soo muuqday sanadkii 1998, markaas oo Eritrea ay dagaal 2 sano ah la gashay dalka ay deriska yihiin ee Itoobiya. kabaha saandalka waxa ay muhiimadoodu tahay in ay ka caawiyaan kuleylka ba'an ee ka jira gobolka. waxay ahaayeen kuwo aan qaali ahayn, sidoo kalena uu qofka xiran hawo ka helayo. marka mid ka mid ah suunka shidada uu go'o, waxaa si degdeg ah loogu hagaajin karaa in lagu dhalaaliyo olol yar. waxay sidoo kale u doorbidayeen in marka ay go'aan si fudud loo hagaajin karay iyadoo la isticmaalayo dab ama holac. waa kabo ay soo xirteen dhammaan dagaalyahanadeenna, ayuu yidhi Jeremy Asmiron oo ah danjiraha Eritrea ee Mareykanka oo markaasi xirnaa kabaha. haddii uu qof kugu arka kabahaas, wuxuu ogaanayaa in aad tahay dagaalyahan, waxayna calaamad u noqotay madax bannaanideenna, ayuu sii raaciyay ninkan lagu magacaabo Jeremy Asmiron oo ah danjiraha Eritrea ee dalka Mareykanka. si waliba ha noqotee, ciidamadaasi Soomaaliyeed ee tababarka u jooga waddankaasi Eritrea ayaa hadda la rajeynayaa in laga shaqeeyo sidii dib loogu soo celin lahaa caasimadooda Soomaaliya ee Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wafdigii uu hogaaminayay soo gaaray caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa la rajeynayaa in ay faahfaahin dheeri ah ka bixiyaan safarkooda, isla markaana waalidiinta Soomaaliyeed u iftiimiyaan waxa ay kala soo kulmeen caasimadda dalkaasi Eritrea ee Asmara iyo goobihii ay ku booqdeen ama xerooyinkii ay ku booqdeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka u jooga halkaas. waalidiintu maadaama ay arkeen sawirada wiilashooda, waxa ay sidoo kale daneynayaan in looga warbixiyo xaaladooda caafimaad ama xaaladooda nololeed sida ay ahayd. madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya ayaana laga rajeynayaa tallaabadan inay u dhaqaaqdo, isla markaana warbaahinta ay soo istaagto oo ay faahfaahin dheeri ah ka bixiso. Cabdikariin Cali Kaar oo afhayeenka madaxweynaha ayaa la rajeynayaa saacadaha inagu soo wajahan in uu ka soo muuqdo warbaahinta dowladda ama warbaahinada madaxa bannaan ee ka jira gudaha waddanka Soomaaliya, isla markaana uu faahfaahin rasmi ah ka bixiyo socdaalka uu Xasan Sheekh Maxamuud ku tagay dalkaasi Eritrea. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerki ayaa labaduba waxay ahaayeen kuwo gooni uga shiraya halkaa, waxa ayna ka arrinsanayaan arrimo fara badan oo ku saabsan danaha labada wadan iyo sidoo kale labada dal oo markaasi labada dad aan dhehe oo shacabka ah oo markaasiba iminka xiriir toos ah dhex maraya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku eedeeyay in dhalinyaradaasi uu sifo sharci darro ah ku qaaday. sidoo kale waxa uu tilmaamay Xasan Sheekh Maxamuud intii uu mucaaradka ah in dhalinyaradaasi la iibsaday laga dagaalgeliyay dalka Itoobiya oo xilligaasi dagaalo qaraari ay ka socdeen, maadaama ay si aad isku hayeen xukuumadda Abiy iyo sidoo kale jabhadda falaagada ee ka dagaalanta dalkaasi Itoobiya ee la yiraahdo TPLF. si kastaba ha noqotee, daawadayaal wixii warar oo ku soo kordha dhalinyaradan Soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaasi Eritrea, barnaamijyadeena dambe ayaa ku daawan doontaan.
daawada muuqaalkan like saar siina share garay nagu soo biir subscribe inoo sar channelka Furagan Baraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino. waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga ayaa inoogu reebi karaysa aragtidaada saliimka tan iyo barnaamijkan kiisa kale daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.